Casharkan waa casharkii 12aad waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics. Casharkan waxaan kaga hadli doonaa sida ay isugu xirmaan circuitska ama waxyaalaha korontada ku shaqeeya. Waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano node iyo junction. Waxaan kaga hadli doonaa branch, loop iyo mesh. Casharadan waxaa lagu qaataa engineeringka first yearka ayaa lagu qaataa. Waxaa kaloo introduction ahaan loogu qaataa physicska markuu qofka high schoolka uu dhiganayo. Marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan. Inta aanan ka hadlin circuitska, nodeka, branchka iyo loopka sida uu isugu xirmo, marka hore tusaale yar ayaan rabaa inaad intuso circuitka waxay tahay sideedaba. Haddaan soo qaato battery, batterigaas aan ku xiro resistor aan ku xiro. Resistorkaas oo series la ah batteriga. Haddana aan soo qaato resistor kale iyo resistor kale oo asaga parallel la ah. Haddaan isku xiro resistorada haddaan isku xiro lugahooda kan koowaad haddaan isku xiro iyo resistorada lugahooda labaad aan ku xiro batteriga. Waxaan sameeyey circuit ayaan sameeyey. Circuitkaas oo leh battery 1 volt ah, resistor series la ah batteriga qaybtiisa pluska oo 1 kilo ohm ah. Resistorka 1 kilo ohmka ah waxa uu ku xirmayaa laba resistor oo parallel ah. Kuwana lugtooda labaad resistorskaas waxay ku xirmayaan groundka ayay ku xirmayaan ama negativeki batterigiisa minuskay ku xirmayaan. Marka su'aasha waxay tahay nodeka muxuu yahay? Nodeka waa meesha ay isaga xirmaan laba device ama laba shay oo ku shaqeeya korontada. Misalba batteriga waxa uu ku xirma resistorka meesha ay isaga xirmeen waxaan dhihi karnaa waa node. Resistorkan waxa uu ku xirmayaa resistorka parallelka ah meesha ayuu kaga xirmayaa taana waxaa loo yaqaanaa node. Sidoo kale resistorka saddexaad waxa uu ku xirmayaa meesha ayuu kaga xirmayaa isagana waxaan dhihi karnaa waa node. Marka inta yellowga ah oo aad u jeedaan waxaa loo yaqaanaa node waa meesha ay isaga xirmayaan. Lugta labaad oo resistorkan iyo resistorka labaad waxay ku xirmayaan batteriga minuskiisa. Taana waxaan dhihi karnaa 1 2 3 4 meelood waxaan dhihi karnaa waa node ayaan dhihi karnaa. Sidii tusaalihii hore aan idinku tusay. Marka su'aasha waxay tahay sidee bay isugu xirmataa circuitska? Saddex shay ayay ku beesgaraysan tahay isku xirnaanshaha circuitka. Saddexdaasna sida hore usoo taabtay waxaa loo yaqaanaa node, branch iyo loop ayaa loo yaqaanaa. Wareegga korontada waxay ku salaysan tahay saddex aragtidood kuwaas oo kala ah nodeka, laanta iyo loopka. Marka branch wuxuu noqonayaa laan sida geedkii oo kale. Loopna wuxuu noqonayaa duub wax duuban oo maaragtay loop sameeyey. Nodena wuxuu noqonayaa meesha ay isaga yimaadaan ama dhibicda ay yeelato. Haddaan soo qaato circuitskan oo kale ama deviceskan oo ku shaqeeya korontada. Misalanba AC oo kale, sine wave, battery ama koronto ama resistor ama capacitor ama inductor ama resistor variable isbedelayo ama transformer 101 ah ama diode ama LED haddaan soo qaato kulligood sibay isugu xirmaan. Sida isugu xirmaanna waxay samayn karaan saddexdaas shay oo aan soo sheegay node, branch iyo loop. Marka sidaa u jeedaan sidaan tusaalihii hore idinku soo sal batteriga wuxuu ku xirmayaa resistorkaas. Resistorka waxa uu ku xirmayaa capacitor meesha ay isaga xirmaanna waxay samaynaysaa node. Inductorkan sidoo kale lugtiisa waxay ku xirmaysaa capacitorka iyo resistorka. Meeshana waxaa ku xirmaya current source waxa loo yaqaano wax korontana siinaya. Taana waxay kaga xirmaysaa inductorka, capacitorka ayay ku wada xirmaysaa. Meesha hoose kulligood waxay ku wada xirmayaan lugtooda labaad ama current sourceka ama inductorka ama waxaan u naqaanaa duub ama capacitorka kullina waxay ku xirmayaan batteriga negativekiisa. Taana marka waxaan dhihi karnaa waa node. Marka su'aasha waxay tahay nodeka garanay branch muxuu yahay? Branch are the connection between nodes. Branch waxa waaye meelaha ay isugu tagaan ama ay isugu xirmaan nodeska. Branch is a single element ayuu noqonayaa. Branch wuxuu noqonayaa resistorka keligiis, capacitorka ama current source ama voltage ayaa waxaan dhihi karnaa keligood markay meel ay taagan yihiin ayaa waxaan dhihi karnaa waa branch ama waa laan.
number of branches in a circuit is equal to the number of elements. Inta branch oo circuitka uu leeyahay waxay la mid tahay inta aalad oo ku xiran circuitkaas. taa marka waxay noqonaysaa resistorka wuxuu noqonayaa hal branch, capacitorka sidoo kale, inductorka sidoo kale, kuwaasoo dhan waxaa la dhihi karaa waa branch. tusaale haddaan soo qaadano baterigan halka volta waxaan leenahay waa branch. resistorka halka kilom ah waxaan leenahay waa branchkii labaad. resistorkan oo kale isagana waa branchkii saddexaad, ka waa branchkii afraad, kana waa branchkii shanaad. marka circuitkaas aan hadda soo sawirnay oo leh bateriga iyo intaas afartaas resistor leh waxaan dhihi karnaa waxay leedahay 5 branch ayaa leedahay. 5tan branch waxay ka kooban tahay 4 resistor iyo hal battery ayay ka kooban tahay. marka taa ayaa loo yaqaanaa branch. marka branch are connections between nodes, waa meesha ay isaga xirmaan brancheska nodeska ay isaga tagaan ayaa waxaan dhihi karnaa branch. marka kan oo kale nodekaas ayuu ku xirmay waa branch. resistorkaas wuxuu ku xirmay nodekaas waa branch. resistorkaas wuxuu ku xirmay nodekaas waa branch. marka branch taa ayaa loo yaqaanaa. masalan haddaan soo qaadano afartaas resistor haddaan soo qaadano brancheskoodu xaggee yihiin? ka jawaab su-aashaas waxaan ku siinayaa 1 minute. okay, jawaabtu waxay tahay resistorka koowaad waxaan leenahay waa branchka koowaad. resistorka labaad waa branch. resistorka saddexaad waa branch. resistorka afraadna waa branch. marka waxay leedahay 4 branch ayay leedahay waxayna isugu yimaadaan nodeka. marka taa ayaa fasiraysa halkan branches are the connection between nodes. nodeka meesha isaga xirmaan ayaa waxaa la dhihi karaa waa branch. node waan ka hadalnay already, laakiin node muxuu yahay? node is the point of connection between 2 or more branches. waa meesha ay isugu yimaadaan brancheska ayaa waxaa la yiraahdaa node. waa meesha ay iskaga yimaadaan laba ama wax ka badan oo laama ah. masalan waxaan soo qaadanay afarta resistor, meesha ay isugu yimaadaan waxaan dhihi karnaa waa node. circuitkii hore aan tusaalaha idinku tusa sidoo kale kaa waxay noqonaysaa bateriga meesha uu kaga xirmayo resistorkaas iskaga qabsanayaan waxaan leenahay waa node. resistorka serieska la ah labadan parallelka meesha isaga xirmayaan waxaan dhihi karnaa waa node. resistorka saddexaad oo parallelka la ah resistorradan wuxuu dhihi karnaa meesha uga xirmo waxaan dhihi karnaa waa node. tan kalena waa garateen afartan dhibco meelaha ay kaga xirmaan bateriga uu kaga xirmo resistor koowaad, resistorka labaad, resistorka saddexaad ama groundka uu kaga xirmana waxaan leenahay waa node ayaan leenahay. circuitka haddaan sii masawirno waxaan uma sawir karnaa sidaas oo kale. bateriga waxa uu ku xirmaya resistorkaas ayaa ku xirmaya. saddexdaas resistor meesha iskaga yimaadaan hal dhibac ayay noqon kartaa oo fiilo isku xiri karnaa. saddexda lugooda kalena hal dhibac ayay noqon karaan waa isku xirmi karaan. baterigana wuxuu kaga xirmayaa dhinacana resistorka serieska kaga xirmaya, dhinaca kalena saddexda resistor oo parallel ah. marka circuitkaas waxaan dhihi karnaa waxay leedahay 3 node. nodekaas iyo nodekaas iyo nodekaas. marka circuitka waxay leedahay 3 node. saddexda node oo kala ah nodekaas iyo kaasoo hal node aan dhihi karno iyo hoos afarta meesha isaga xirmayaan ayadana waxaan dhihi karnaa waa hal node. marka waxaan leenahay circuitka waxay leedahay 3 nodes. meesha ay isaga xirmaan 3 iyo wixii ka badan oo nodes ay isugu yimaadaan waxaa also loo yaqaanaa essential node ayaa loo yaqaanaa, nodekii importantiga ahaa. mar haddii isu yimaadaan 3 branch meel ay node ka sameeyaan waxaa la yihahdaa essential node. tanna waxay noqonaysaa sidoo kale essential. marka essential node micnaheeda waxay tahay 3 or more nodes oo meel isugu yimaada. tan kale aan rabno inaan ka jawaabno wuxuu yahay loop waxa loo yaqaano ama wareeg. marka loop wax kale ma aha is any closed path in a circuit. sidaan u sheegnay loop is any closed path in a circuit. masalan circuitka haddaan soo qaadano waxay leedahay battery, resistor iyo 2 resistor oo kale. resistorkaasna waxa uu ku xiran yahay series. any closed path marka la leeyahay waxaan ka soo qaadanaynaa halkaas adoo joogo koronto ayaa halkaa ka tagtay, waxay martay resistorkaas, waxay soo martay resistorkaas, waxay ku soo laabatay meesheeda.
taa ayaa waxaan dhihi karnaa waa meel xiran ama close path. Waxay martay jid xiran ayay martay oo ay ku soo laabatay meeshii ay ka tagtay. haddii korontada inta ay ka tagto haddana ay marto resistorkaas oo ay ku soo laabato meesheeda ku soo laabato, waxay samaysay wax loo yaqaano loop ama wareeg xiran oo ay meesheeda ay ka tagtay ayna ku soo laabatay. tusaale haddaan soo qaadano circuitka, korontada waxa dhibcaha ujeedaan waa electronskii ama korontadii. waxa ay ka tegeen halkaas, waxa ay ku soo mareen resistorkaas, waxayna ku soo laabteen meeshoodii. taa waxaan dhihi karna waa loopkii koowaad. loopka labaad, korontadii waxay ka tagtay halkaas, waxay u kala qaybsantay laba, midna halkaasay martay, midkii kalena halkaas ayay martay. midda halkaa martay oo resistorkaas 1K-ga soo martay kuna soo laabatay booskeeda, ayadana waxaan dhihi karnaa waa loop. marka loop wax kale ma aha, waa meel xiran oo ay korontada ka tagto ay ku soo laabato. sidii tusaalihii aan ku tusay circuitkii, waxaan soo qaadanayaa circuit leh battery, resistor iyo 3 resistor oo parallel ah. marka haddiina la dhaho raadi loopkana raadina la yiraahdo, waa inaan meel qabsanaa aan ka tagnaa oo korontadu ay ka tagto ama electronsku ay ka tagaan. haddaan pointigaas aan qabsano oo aan rabno inaan fiirino inta loop ee leedahay circuitkaas, waxaan ka bilaabaynaa halkaas. circuitka marka waxay ka tagtay loopka, waxa uu ka tegay pointiga a, waxa uuna ku soo laabtay pointigaas, ka waxaan dhihi karnaa waa loop 1. loopka labaad, waxa uu ka tegay a, waxa uu ku soo maray resistorka labaad oo parallelka ah, waxa uuna ku soo laabtay meeshoodii. taana waxaan dhihi karnaa waa loopka labaad. loopka saddexaad, sidaas sheegteen, wuxuu soo marayaa resistorka u dambeeyo, waxa uuna ku soo laabanayaa booskiisa. marka loop wax kale maaha, waa inaad ka tagtaa any close path in a circuit ayaa la yiraahdaa. meeshaa ka tegaysaa, jidka halkaa waa xiran tahay, waa soo laabatay. tan kalena waa halkaas resistorka labaada martay, way xiran tahay. tan kalena waa resistorka saddexaad. taan marka loop ayaa loo yaqaanaa. waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo independent loopka xorta ah. independent loop contains at least one branch that's not part of any other independent loop. waxa uu ka kooban yahay hal branch oo ka xor ah independent kale, loopab kale oo independent ah. masalan haddaan soo qaadano tusaale circuitkaas oo kale, oo aan loopka aan sameyno, loopka ugu horeeya aan sameyno oon ka tagno resistorkaas oo aan marno resistorkaas. sharciyadu wuxuu leeyahay loopka independent loopka waa inuu at least leeyahay hal branch oo ka xor ah kuwa kale. branchka first resistorkaas branch waaye, wuxuuna ka mid yahay loopkaas, laakiin xor ayuu ka yahay any other branch oo circuitka ah. marka kaa waxaan dhihi karnaa waa independent loop. tan labaad oo soo qaadan karna loopka labaad wuxuu noqonayaa resistorkaas oo kale, loop ayaan sameynaa markaan ka tagno pointerskaas. haddaa u fiirsatana loopka wuxuu leeyahay at least hal branch ayuu leeyahay. branchkaasna waa xor ayuu ka yahay loopkan oo independentka ah, maadaama uusan branch ka sameynin. haddii halkaa resistorkaas uu halkaa uu mari lahaa, uu ku soo laaban lahaa halkaas, ma dhihi karneen waa independent loop. tan kale oran inaan ka hadalno oo loopka ka mid ah, waxaa la yirahdaa mesh ayaa la yirahdaa. mesh waxaan dhihi karnaa waa sida dariishadahoyn oo kale, duduleelyada ay leeyihiin oo kale ayaa waxaan dhihi karnaa mesh. mesh is a loop that has no other loops. mesh waa loop aan lahayn loopab kale. muxuu ka wadnaa? masalan markaan soo qaadano circuitka, batteriga iyo resistorkaas waxa uu leeyahay loop gooni oo ah, independent ayuu ka yahay loopyada kale, ama kuma uusan xirno loopyada kale. there is no other loop oo gudihiisa ka samaysmaya. masalan kan oo kale waa loop kale, labada resistor waxay sameynayaan loop. sidoo kale resistorka waxa uu sameynayaa loop. marka mesh waxaa loo yiri sidoo kale duleel iyo duleel iyo duleel, sida dariishadihii duleelkooda kale ayay waxay leedahay u eg tahay. marka saasaa mesh loogu magacaabay. waxaa kaloo jirta oo lagu bartaa cilmiga engineeringka waxa la yiraahdo network topology, sida ay isugu xirmi karaan circuityada. tii hore aan ka hadalnay, waxaan ka hadalnay node, waxaan ka hadalnay branch, waxaan ka hadalnay loops. hadda waxaan ka hadlaynaa sida ay isugu xirmi karaan circuitska. masalan sida hore usoo tusnay, series resistorska noocan isugu xirmaan waxaa loo yaqaanaa series topology. markii parallel isugu xirmaan waxaan dhihi karnaa waa parallel topology ama isbarbaryaalo. waxaa kaloo loo xiri karaa circuitka resistor oo hal keligiis ah oo parallel la ah laba resistor oo series ah.
aniga hadda resistor aan leeyahay laakiin waxay noqon kartaa inductor, wuxuu noqon karaa capacitor, wax kasto ayuu noqon karaa, xataa diode uu noqon karaa. Marka sida isugu xirmaan unba ayaa important ah. waxaa kaloo jirta wax la yidhaahdo y topology oo u eg sidii y-ga oo kale. isagana waxa waaye laba wuxuu leeyahay oo devices ama resistor u noqon karaa ama capacitor ama inductor oo isugu xirma saas, waxayna la sameynayaan node midkaa dambe. waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo delta oo Greek letterka loogu magac daray oo isagana sidoo kale isugu xirmaayo sida deltada oo kale. sharciyo ayay leedahay marka sida lagu helo branchka. masalan su-aal ayaa lagu warsada, waxaa lagu yidhi branchka muxuu yahay. sharciga lagu helo branchka waxay tahay inta loop oo lagu daray nodeka, inta node uu leedahay circuitkaas oo laga jaray hal. marka waxay la mid tahay branch equals to loop plus node minus 1. marka tusaale ayaana la warsaday oo waxaana la siiyey circuit ayaana la siiyey, waxaana la yidhi waxaa raadisaan inta branch ee leedahay. formula sidaan usoo sheegnay waxaa lagu helaa l plus n minus 1. su-aasha ugu horeysa markaa iswarsanayn waxay tahay inta node ee leedahay. circuitkan waa circuitkii hore aan soo sharaxnay, laakiin tusaale ahaan ayaan rabnaa inaan isticmaalno formulahaas oo kale. waxay leedahay sida hore usoo sheegnay 3 node ayaa leedahay, nodekaas iyo nodekaas iyo nodekaas. marka waxaan leenahay waxay leedahay 3 node. branch sidaan usoo sheegnay waxay leedahay branchkaas koowaad, taa labaad, taa saddexaad, tan afraad iyo tan shanaad. waxay leedahay 5 branch ayay leedahay. loopna sida hore usoo sheegnay haddaan pointigaas aan ka bilaabno waxaan yeelanayaa loopkaas koowaad, loopka labaad iyo loopka saddexaad. markaa circuitka waxay leedahay 3 loop ayay leedahay. haddaan formulaha isticmaalno branch equals l plus n minus 1 haddaan isticmaalno, l waxay la mid tahay 3, loopka waa 3, nodekana waa 3, markii la isku daro waa 6, markaan ka jarno hal waxaan helaynaa 5. marka circuitka waxay leedahay 5 branch. sida idin tusana 5 branch ayaa lahayd oo branch koowaad, labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad.